halyidiirano dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayreetu caqabo kasidiirano alla doorayo hoggaan daacado lagu diirsado halyidiirano dadka iyo dalkuba ku nagaadayo khayreetu caqabo kasidiirano alla doorayo hoggaan daacado lagu diirsado hamigiisuna midku durugsayo xanan dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula darye allow kula dadaal oo kula darye hamigiisuna midku durugsayo xanan dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula darye allow kula dadaal oo kula darye halyigii dadkani muddo doonayo dulli iyo daciib midkan qaadano dastuurkiyo sharciga kasi dhowrayo khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula daryeel halyigii dadkani muddo doonayo dulli iyo daciib midkan qaadano dastuurkiyo sharciga kasi dhowrayo khayreetu caqabo allow kula dadaal oo kula daryeel dowladnimo himiliyo wax qaban midka doonayo khayreetu caqabo hibadii dalkani hore uu lahaa midka raadiye inuu soo cesho higsi dowladnimo himiliyo wax qaban midka doonaye khayreetu caqabo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya Xasan Ali Khayre waxaan leenahay mudane mas'uul mudane wadani mudane siyaasi isku soo dhawow xarunta Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug aad baan ku soo dhaweynaa hadii aan nahay dhalinyarada shacabka reer Soomaaliyeed ee degan Gaalkacyo waxaan kugu soo dhaweynaa sharaftan iyo ciidadan aad baan ku jecelnahay dawladda nabad iyo nolol waxaan leenahay dawladda nabad iyo nolol waxaan leenahay jiro joog waan taageersanahay dawladda nabad iyo nolol dawladda waan taageersanahay sida wanaagsan ay u shaqeynayso waa taageersanahay ruuxantii waxaan leenahay khayra jiro joog dawladda khayra waxaan leenahay jiro joog ruuxantii dareenkaygu maanta aad buu u sareeyaa maadaama aan halkaan ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyay ku soo dhaweeyay gobolka Mudug gaar ahaan Gaalkacyo waxaan sugaynaa insha Allah waa inaan ka qayb qaadano soo dhaweynta si diiran waxaan leeyahay dawladda nabad iyo nolol insha Allah aad iyo aad ugu guuleysanaysaa waxaan galabtii u soo baxay inaan soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha qaranka Xasan Ali Khayre mudane Xasan Ali Khayre runtii dareenkaygu aad buu u sareeyaa oo markii ugu horeysay aan la kulmayo ra'iisul wasaare qaran intii noloshayda ahayd marka aad baan ugu soo dhaweynayaa mudane ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre ku soo dhawow magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug xaruntiisa Puntland farxad ku soo dhawow bulshadaadii iyo shacabkaagii
iyo dadkaad u talinaysay ku soo dhow ayaan leeyahay ra'iisul wasaare. waxaan imid inaan ka qayb qaato soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaan ku faraxsanahay inuu yimaado maanta magaalada Gaalkacyo waxaana bogaadinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay sida muhiimadda leh oo galmudug iyo arrimaheeda uga shaqeeyay iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si uu mideeyay deegaanada galmudug sidoo nabadda uga wado sidoo horumarka uga wado waxaan u rajaynayaa Puntland sidoo kale iyo qaybtan waddanka hadda aan joogno garoonka Cawaalana wax ka qabto haddaan dhalinyaranahay inaan la kulanno oo soo dhaweyno waan jecelnahay aad iyo aad waxaan ka mid ahay taageerayaasha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa aad waxaan u faraxsanahay inaan ku soo dhaweynayno magaalada Gaalkacyo qaybteeda waqooyi Gaalkacyo qaybo kala lahan sidii ra'iisul wasaaruhu sheegay waa magaalo qur'a waa magaalo isku degan yahay ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa waxa soo aragtaan waa ra'iisul wasaaraha taageeradiisa annagu waxaan nahay dhalinyarta Gaalkacyo wali ma aanan arag dawlad waxa kan la yiraahdo sidaan oo kale ma aanan soo gaarin maanta waxa kale yiraahdo dawlad waxa kale baanbooygeedii wadata waxa kale yiraahdo dawladnimo noo muuqata waa qiireysanahay run ahaantii wasaaraha waxaanayna soo dhawow gacan furan ma kugu soo dhaweynaa Gaalkacyo waa idin salaamay inaan idinkugu imaado garoonkii Maxamed Cawaale Liibaan oo ah halyeygii calanka Soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah waa ku mahadsantiin shacabka reer Gaalkacyo waxaan uga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ay nagu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantiin xalayto ayuu igu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan labadaydii gacmood ay geestii waqooyi Gaalkacyo ba nabadba geesiyaal magac dhabo geygii lagu yaqaano Gaalkacyo ma nabadba halgankii gumaysiga gobonnimo u dirirka dhulkii lagu yaqaano Gaalkacyo ma nabadba gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayay ruuxday gogoshu taalaaye Gaalkacyo ma nabadba ra'iisul wasaare geesi Cabdirasaaq Xaaji Xuseen geygii uu ka yimid mudugay ma nabadba Gaalkacyo salaam naga guddooma nabad naga guddooma midnimo naga guddooma farxad naga guddooma gacan furo naga guddooma dawladnimo naga guddooma dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan nagu soo dhaweysay oo maanta dhan halkan taagneed waa mahadsantiin waxaan idinkugu bishaaraynayaa in garoonkan la idin dhisi doono la idinkaga dhigi doono sida aad rabtaan haddii Ilaahay yiraahdo shacabka iyo dawladdu waa wadnihii iyo beerka qofka bini'aadanka lama kala qaadi karo shacabka iyo dawladda dawlad aan shacab lahayna shacab ma aha shacab aan dawlad lahayna dawlad ma aha waad ku mahadsantihiin Gaalkacyo inaad idinku muujiseen tusaalahaas aan hore loo arkin waxaan rabaa dhallinyarada halkan joogta dadkii Soomaaliyeed ee ficiina ahaa ee dhaliyay gobonnimada kuwii dhallinyarada ahaa ee ku jira SYL inta ugu badan waxay ka soo jeedeen gobolka Mudug gobonnimadii ay dhaliyeen waxaa la rabaa idinku inaad sii wadaan Soomaalinimada idinkaa la rabaa inaad ogtaan idinkaa la rabaa inaad horumarisaan
waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan maanta taagannahay isbartiibadii loogu magac daray halyeygii calanka heestii calankana laga tumaayo halkan waa dhiiggii soomaalinimada waa mahadsanteen waxaan rabaa inaan idiin sheego sanadku markuu ahaa 1948 waxaa jiray 2 wiil oo Soomaali ah oo idinka da'diinoo kale ah waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysataan labadaas wiil waxaa la kala oran jiray Cabdullaahi Ciise iyo Maxamuud Yuusuf Muure Allah u naxariisto Cabdullaahina Allah u naxariisto labadaasuba waxay ka soo jeedaan deegaanadan aad degantiin 1948 markii qaramada midoobay ay yidhaahdeen Soomaaliya qofa soo dirsato uga hadla halgankeeda gobonimo doonka talyaanigii halkan jooga wakhtigaas waxay yidhaahdeen maadaama aad Cabdullaahi Ciise dirsanaysaan waa in cirbad lagu duraa Muuro Allah u naxariistay oo Cabdullaahi Ciise u eka waxa uu yidhi inta adiga lagu duri lahaa oo sun lagu duri lahaa aniga naftayda hibeynaya waxaan rabaa aniga in la duro markii la duray Allah u naxariistay Muuro Cabdullaahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay sidaas ayuu u tagay qaramada midoobay sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyaddii sidaas ayay xorriyaddii ku timid waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka Muuro iyo Cabdullaahi isku qabiil ma ahayn midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga Gaalkacyo midna koonfurta Gaalkacyo haddii qabiil uu wax taraayo mid baa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila aniga naftayda adiga kuu qadimaya si adigu aad u waddo xorriyaddaas su'aasha la rabo maanta in la isweydiiyo waxay tahay xorriyaddii wiilashaasi ay u dhinteen ammaanadii ay idin dhiibeen reer Gaalkacyo xaggee bay ku dambaysay laguma hayn karo Soomaali kala qaybsan laguma hayn karo Soomaali xuduudyo kala leh sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in quluubta shacabka Soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin ammaanadii la idin dhiibay Soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka hayo diyaar ma u tihiin Soomaaliya midaysan Soomaaliya sharaf leh Soomaaliya xooggan Soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada Gaalkacyo hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku bedelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku bedelaynaa iimaan iyo sharaf reer Gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego Gaalkacyo nabad ah waa Soomaaliya nabad ah Gaalkacyo hagaagsan waa Soomaaliya hagaagsan Gaalkacyo isdhex gasha waa Soomaaliya isdhex gasha xalka Gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahay Soomaaliya waa inaad Gaalkacyo Soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taagannaha Gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro Dhuusamareeb in laga qoro Caabudwaaq in laga qoro Xeraale in laga qoro Hurshe in laga qoro Barambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan
dawladdiinnuna diyaaray u tahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo reer gaalkacyo waqooyi iyo koonfurba waa soomaali aan la kala qaadi karin ilaahay ha idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu